kulanto wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada maanta ugu dooroon aad ku daawan doontaan dalka media waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan askari ka tirsan booliiska Soomaaliya oo darwal ku dilay magaalada Muqdisho madaxtooyada Soomaaliya oo ka hadashay sababtii uu Farmajo u tagay Ethoipia dawladda federaalka Soomaaliya oo lagu eedeeyay inay burburisay heshiiskii qaybsiga dakhliga kalluumaysiga koox hubaysan oo weerar xooggan ku qaaday xarunta deegaanka Gaadidka ee gobolka Banaadir halkaas in la sheegayo inuu ka dhashay khasaare kala duwan qodobadaasi qodobo kale ayaad ku daawan doontaan daawadayaal dalka media balse aan ku bilaabo magaalada Muqdisho askari ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa la sheegay in darawal waday gaari hoomeeya uu ku dilay degmada Hodan ee gobolka Banaadir dilkan ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay isgoyska Saint-Germain ee degmada Hodan goobjoogayaal ayaa sheegay in askariga waxa dilay iyo darawalka ay murmeen maadaama wadadaasi ay aad u cariiri u tahay taasina waxay keentay in askariga uu xabad kaga dhufto madaxa darawalka gaadiidka dadweynaha ee maanta la dilay ayaa waxa magaciisa lagu soo koobay Langel askariga dilka geystay ayaa goobta ka baxsaday iyadoo halkaasi ay gaareen ciidamada booliiska Soomaaliya kontaroolka Saint-Germain ayaa dadka waxay u garanayaan kala wareeg maadaama gaadiidka ka yimaada kontarool ilaa iyo afgooye aysan soo dhaafi karin halkaasi halka kuwa ka baxa Muqdisho iyagana aysan dhaafi karin kontaroolkaasi waana gaadiidka dadweynaha kontaroolada ay joogaan ciidamada booliiska qaarkood waxa lagu dhibaateeyaa dadka shacabka maadaama aan la ogoleyn gaadiidka inay soo maraan meelaha qaar ee ciidamada booliiska ay joogaan ayaa darawaliintu waxay weydiiyaan aqoonsi dawladeed oo kaliya balse dadka oo dhan ayaan haysan aqoonsi dawladeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmajo oo maalmahan booqasho shaqo ku joogay boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay madaxweynaha oo ka qayb galay shirkii degdeg ahaa ee jaamacadda Carabta iyo kii caadiga ahaa ee ururka iskaashiga Islaamka ayaa ugu mahadceliyay boqorka iyo dhaxal sugaha sida loogu soo dhaweeyay asaga iyo wafdigiisa dalka Sacuudiga madaxweynaha ayaa intuu ku sugnaa boqortooyada dalka Sacuudiga waxa uu kulamo la yeeshay qaar ka mid ah madaxda dalalka Islaamka isagoo kala hadlay xaaladda Soomaaliya iyo sidii dawladda gacan loogu siin lahaa la dagaalanka AL-SHABAAB dhanka kale madaxweynaha oo saaka ka soo kicitamay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jidda ayaa wuxuu soo maray dalka Ethoipia gaar ahaan magaalada Addis Ababa halkaasi oo uu ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Ethoipia Abiy Ahmed wada hadallada ay yeesheen madaxweyne Farmajo iyo Abiy Ahmed ayaa waxaa xoogga lagu saaray sidii loo sii dardargelin lahaa iskaashiga dhinacyada amniga iyadoona sidoo kale soo hadal qaaday xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka maamulka galmudug gaar ahaan wasaaradda kalluumaysiga ee maamulkaasi ayaa waxay war-saxaafadeed ka soo saartay waxay ku sheegtay in dawladda dhexe ay burburisay heshiiskii qaybsiga dakhliga kalluumaysiga ee ka dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ku socota safiirka Shiinaha ee Soomaaliya iyo cid kasta oo ay qusayso inta u dhaxaysay November 15keedii 2018 ilaa iyo Abriil 20keedii 2019 dawladda federaalka Soomaaliya waxay sharciyeysay inay shati kalluumaysi siisay 35 shirkadood oo shirkadaha Shiinaha laga leeyahay si ay kaga kalluumaystaan xeebaha badda Soomaaliya sida aad ka warqabtaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada waxay heshiis ku gaareen in la kala qaybsado kheyraadka dalka isla markaana la isla socodsiiyay sida heshiiskii Baydhabo iyo Addis Ababa ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda kalluumaysiga maamulka galmudug isla markaana dawladda federaalka Soomaaliya ay jibisay heshiisyadaasi haddaba xafiiska madaxtooyada ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka maaliyadda iyo wasiirka kalluumaysiga kheyraadka badda ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si cad u qeexay in galmudug aysan fulin karin heshiisyo ee ku saabsan kheyraadka badda maamulka galmudug iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa markii hore waxa ka dhaxeeyay khilaaf aad u xooggan iyadoona khilaafkaasi uu saameeyay meel kasta haatan uu marayo wasaaradda kalluumaysiga ee maamulka galmudug oo war-saxaafadeed soo saartay isla markaana ku sheegtay inuu burburiyo heshiiskii kheyraadka ee kalluumaysiga badda warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar koox hubaysan ay ku qaadeen deegaanka Gaadidka ee duleedka magaalada Muqdisho
weerarka oo xalay ka dhacay ayaa la sheegay in daqiiqado kooban uu ka socday deegaanka Garsbaale ee duleedka magaalada Muqdisho iyadoona ciidamada ammaanka ee xarunta ku sugan iyo maleeshiyaadka ay ku dagaalameen bartamaha deegaanka xarunta degmada Garsbaale oo ku taala dhabarka dambe ee jaamacadda Shabeelle ayaa weerar lagu qaaday waxaana kadib la sheegay in kooxaha weerarka geystay ay u baxsadeen dhanka deegaanka ceelasha biyaha mas-uuliyiinta deegaanka ayaa sheegay in weerarka uu geystay dhaawac soo gaaray mid ka mid ah ilaalada xarunta deegaanka iyadoona aysan shaacin dhinaca kale waxyeelada soo gaartay ciidamada ilaalada xarunta deegaanka Garsbaale ayaa gurmad ka helay ciidamada asluubta waxaan u suurto gashay in ay meesha ka saaraan kooxihii weerarka ku soo qaaday xarunta deegaanka Garsbaale ciidamada ammaanka ayaa weerarka kadib xaafadaha Garsbaale ka bilaabay baaritaano ku aadan baadigoobka kooxihii weerarka ku soo qaaday xarunta deegaanka Garsbaale ee duleedka magaalada Muqdisho ma jirto cid wali sheegatay mas'uuliyadda weerarka lagu qaaday xarunta maamulka Garsbaale ha yeeshee waxaa mararka qaar weerar noocan oo kale ku soo qaada xarunta degmada Garsbaale dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa daawadayaal warkii aad ka daawanayseen Dilka Media intaan warkaan oo kale aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo